الحمد لله waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrinta gudoomiyaha baarlamaanka oo shalay ka hadlay baarlamaanka isagoo dhaliilaya shirka maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka uga socda maamul goboleedka Galmudug gudoomiyuhu wuxuu u muuqday nin ka soo horjeeda inaan doorasho xor iyo xalaal waysa doorasho xor ah oo dadka Soomaaliyeed ku wada qanacsan inaysan dhicin ay dhacdo doorasho koox wadato muddada la dheeraysto waqti lumis ah oo laakiin la adeegsanayo doorasho dadban anagu meel ay ku aragnay iyo meel ay ku qorantay ma naqaan uu leeyahay doorasho dadban asaga ku jooga asaga ku yimid doorasho toos ah Soomaalidu waqtigan hadda joogto oo doorasho xor iyo xalaal ah oo qof si sax ah loo qabto oo dulmi iyo ku shubasho aan ku jirin iyo xadgudub oo la isla wada ogol yahay maanta Soomaaliya ka dhici karta sababta waxaana keenaya arrimo badan oo ku gadaaban xagga dhaqaalaha xagga amniga xagga maaragtay isku xirnaanta bulshada waxaasoo dhan ayaan suuro gelinayn saas aawadeed gudoomiyuhu wuxuu ujeedkiisu waxa weeye in uu hor istaago oo qabad ku noqdo geedi socodka dib u heshiisiinta geedi socodka looga tashanayo dowladda waqtigeedii dhamaaday baarlamaan hadduu ahaan lahay mandatekeedu dhamaaday waqtiga ka dhamaaday xukuumadda iyo golaha shacabkaba intaba in meeshii hore looga soo doortay oo ahayd maamulada ay leeyihiin dadku maamul goboleedyada oo baarlamaanka golaha aqalka sare soo doortay doorasho ay ku yimaadeen baarlamaanka laftirkoodu xildhibaanadu ay ku yimaadeen doorashada gobol kasta nin walba doorashadiisu deegaan doorashadiisu ay tahay uu ka yimid in dib loogu celiyo sidii oo kale si ay la isku waafaqsan yahay lagu soo doorto halkaasna laga sii amba qaado si loo gaari lahaa Soomaaliya nabada xor isu doorata si loo gaari lahaa laakiin wuxuu doonayaa si qudba sira ah oo been ah oo baarlamaan waqtigiisii dhamaaday oo yiraahdo go'aamo gaaraya waxba wadaya oo iska haysanaya ma aha baarlamaanku waqtiga haduu ka dhamaado dadka waxa ka badbaado mandate ka dhamaaday waxay ahayd 2 sano ka hor in la diyaar garoobo ama 3 sano ka hor in hawsha laga shaqeeyo ammaanka la suuro geliyo wixii oo dhan la sameeyo bulshada loo bandhigo bulshada laga tashado lala socdo maamulada gobolada laga tashado waxaas oo dhan ma aysan dhicin laakiin waxa dhacday in waxaas oo dhan la kala baabi'iyo koox gooni ay gooni u ordo wax aan jirin ay soo sameystaan oo ay doonayaan qabad inay ku noqdaan ama maamulka ay ku sii dheereystaan ay muddo kororsi ay ku raadsadaan taasuna waa xaraan ummadda Soomaaliyeed aqbalay maydo taas ayaan u sheegaynaa gudoomiyaha waqtiga yoosan iska lubin inta yar biraha yar oo haray ha ka qayb galo shirka ha ka qayb galo gobasha Galmudug ha ka qayb galo halka fikirkiisa oo qabo ha ku jeediyo wixii maartii loo heshiiyana ha raaco hadduu soo raacin waxa waaye asaga mas'uul ka noqona wixii ka dhaca Soomaaliya magacaygu waa Garaad Cabdullaahi aad ayaan idin salaamayaa intaas ayaan ku soo koobayaa